Soomaali meel walba aad joogtaan Allah idin nabad yeelo wada jirkay midnimadana Allah idin adkeeyo Ilaahay waxaan ka baryo walaalo isjecel suudur daara iscaawiya is ururiya mar walba Allah inaga wada yeelo wax lagu farxay ahay wixii ka dhacay shalay magaalada Nairobi 24 Oktoobar maalin Khamiis ah 2024 sida quruxda badneed ee Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi agagaarkeeda ay isugu soo baxeen una garab istaageen reerkaas sida baan loogu gumaaday loogu xasuuqay magaalada Nairobi anigoo joogo runtii halkan wadankan Zanzibar ayaan runtii ana si qalbi leh aan idin kala qayb qaadanayay reerka ha loo duceeyo Ilaahay waxaan ka bariyaa reerka Allah u naxariisto dambigooda Allah dhaafo cadaalad ku hel Allah ka yeelo qabriga Allah u waasiyo daartii ka tageen daar ka khayr badan Allah geeyo ehelkay ka tageen ehel ka khayr badan Allah siiyo intii ay ka tageenna samri iimaan Allah ka siiyo bedel khayr qabana Allah siiyo shalay intii aan meediya dhax wareegay ma aanan maqal waxaba yaraatee qabyaalada oo ama qabiil ah reerka waa ayo ma aanan maqal yay u dhasheen xagee ka soo jeedaan ma aanan maqal wax qurux badan waaye oo waxaan raadinaynay waxa maanta qabyaaladana kala geeyay waa qabyaalad yuu yahay xagoo ka soo jeedaa yuu dhashay waa waxyaabaha na dilay war qabyaalad shalay hay naga hadho shalay Allah noogu dambaysiyo idinkoo qabaa'il kala duwan aad garab istaagteen oo aad dukaamadii iyo ganacsiga iyo hawlihiin danihiin aad u soo deyseen wax qurux badan waaye yadullahi maca al-jamaa'a waa markii guusha iyo nasriga iyo gargaarka alle uu iman lahaa waaye markii sidan aan u wada jirno ideelkeen waxaan halkan uga mahad celinayaa raggii iyo dumarkii dadkii dhammaan soo qaban qaabiyay kulankaas shalay ka dhacay magaalada Islii aad baan u jeclaan lahayn kulamada noocaas oo kala inay noo bataan waliba kaniisadaha wadanka waxyaabaha laga abuuraayo Soomaali nacaybka ah ololaha nacaybka ah oo Soomaalida ka soo horjeeda iyo ganacsigooda iyo noloshooda oo ay wadaan baadariyaasha ayaa waxaan aad u jeclaan lahaa dadka kulankan soo qaban qaabiyay inay mar labaad noo qaban qaabiyaan oo aan waliba baadariyaasha sawiradooda inta soo qaadano aan socod ku sameeyno Islii in aan dhahno joojiya qabyaalada joojiya isir nacaybka Kenya waa la wada leeyahay Kenyankaas ka wada leh Kenyana hal qabiil maaha waa qabaa'il isu wada yimid waliba Soomaalidu waa qabiilka ugu wanaagsan ee wadanka horumar u keenay dhisay ka shaqeeya amaanka wax walbana u qabto weeyaan magacayaanu ku leenahay ganacsi baanu ku leenahay waxaanu ku leenahay guriyaanu ku leenahay dhulal baanu ku leenahay wax walbaanu Kenya ku leenahay hadday noqoto horumarkeedii hore xoreynteedii hore ilaa iyo horumarkeeda maanta Soomaalida qayb lixaad leh ayay ka qaadatay marka in ay joojiyaan dadka meediyaha ka shaqeeya Kenyaanka kaniisadaha jooga in ay joojiyaan waa in aan mudaaharaad labaad u sameeyna biidinillah taala war arrinka meel ha lagu qorto Soomaali khaasatan dadka siyaasiyiinta ee shalay hogaamiyaalka u ahaa iyo culimada u diinka shalay joogay war meel ha lagu qoro in laga mudaaharaado siyaasiyiinta Kenyaanka iyo dadka baadariyaasha wadaadada kaniisadaha jooga iyo waliba dadka meediyaha ka shaqeeya ee abaabulaya nacaybka isir nacaybka Soomaalida inaan ka mudaaharaadno oo aan dhahno enough is enough Kenya waa hal in la yiraahdo jacayl in la abuuraa la rabaa wada noolaanshaanu doonaynaa Soomaalidan garan marka Allah ida barakeeyo war kulamadan oo kala hala badiyo wada jirkan Allah inoo adkeeyo dadkii soo qaban qaabiyay ayaan halkan uga mahad celinayaa dhammaantiin waad mahadsantihiin Allah ida barakeeyo Soomaali wada jira oo waara oo midnimadiina Allah idin xoojiyo walaalihiis jecel Allah idinka yeelo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh